ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku soo bandhigeen wiilal dhalinyaro ah oo la sheegay inay ku hubaysnaayeen baaskoolado isla markaasina watay gaadiidka loo yaqaano bajaajta waxaana la sheegay in dhalinyaradaasi habeenkii ay dadka moobilada iyo sidoo kale waxa ay sitaan ay kaga qaadi jireen magaalada Muqdisho sidoo kale dhalinyaradani ayaa waxa la sheegay in lagu soo qabtay maandooriyaha xashiishada loo yaqaano قاسم أحمد روبلي أفيانك عيدمدا بوليسكا Soomaaliya oo ka warbixinaya arintaasi ayaa ka sheekeeyay qaabka ay ugu suura gashay in la soo qabto dhalintani abaaro todobadii iyo barkii subaxnimo waxa ciidanka booliiska oo kaashanaya degmada iyo nabad sugidda waxay qabteen raggan aad u jeedaan oo isbaaro dhigtay una dhigtay dadka shacabka ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo ka isbaaraysanayay waxa la wixii ay haysteen lacag hadhiin mobile hadhiin lacagta hadda waxay ba gashay mobileke waxaana mobile ah waxa lagu qabtay 4 wiil 4 ninkan wuxuu ahaa darawalkii mootadan ku aadan ayuu waday nimankan dhalinyarada ah oo aad wajiyadooda u jeedaan waxay wateen bastooladahan aad u jeedaan hal bastoolad bay wateen waa runtiis weeye marka uu soo boodo uu yiri hal bastooladan wadanay waa runtiis hal bastooladay wateen bastooladaas ay dadka ku isbaaraysanayeen dadka waxa laga isbaaraysanayay qof waliba wixii uu hayo intaan oo mobile ayaa lagu qabtay intaas waxa ka horeeyay mootadaas iyo mootadan aniga igu aadan dadkoodii waxay jiraan xabsiga la geeyay xashiishkan aad u jeedaan iskaashigu aad buu u fiican yahay waa xashiish weeye xashiishkaas waxa laga soo dhigay oo loo soo macneeyay sidaan waxa laga dhigay bundad dharka baatiga ah oo bundadaysan baa laga dhigay waana xashiish waad u jeedaan سجل بلدة أحمد هون كيبل تي في